afhayeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inaan la siyaasadeynin xaaladii shalay toole ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku xidhnaayeen maxaabiis badani. Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa waxa uu sidoo kale saxaafadda ugu baaqay in loo baahan yahay in iyaguna ay isxakameeyaan mararka ay xaaladaha adag jiraan, isagoo ugu baaqay in wararka ay bulshada u soo tabinayaan waa siduu hadalka u dhigay ay noqdaan qaar dhinac walba ka dhisan. Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa kaalintii uu Mujaahid Deeb Gurey ku lahaa dib u xoreyntii dalka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: Deeb Gurey Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye dawey laga hooseeyaa, laakiin wuxuu qalbiyadeena ka mutay oo inaga mutay oo magaciisa halkaa loogu qoray waxa weeye intuu ifka joogay sidii ummadiisa ugu adeegay doorkii shariifka ahaa ee uu ka galay halgankii dib u xoreynta qaran ee sare hormuudka ka ahayd oo ahaa halgamayaashii budligayaashii iyo hormuudkii garabkii military ee tallaabay iyagoo dawladdii dooxatada ahayd ee afweyne darajo ka sugi kara halkaa tegey ee ummadooda waxaan kugu soo halgamay ee Ilaahay ku guuleeyey dalkan dhicintiisa ee Rabbi ku guuleeyey isaga iyo boqolaal haliyay oo kale inaan wada magac dhabi karin oo inaan ka gayoonin magacyadooda oo intii dhimatay leenahay Allah ha u naxariisto inta nool la cisiyo sharaf ku noolaadaan halgankii nabadeyntii dib u heshiisiinta ayuu haddana qayb ka qayb qaatay kii dhismaha ciidamada qaranka iyo ka dhigistu door muuqda ku lahaa aasaaskii dawladda Somaliland ee la soo noqotay gooniisutaageennay galbaday ee 60kii koonfur geynay ayuu ka ahaa raggii u halgamay. Ilaahay ha u naxariisto. hal iyo laba baan ka oranayaa ardayga Deeb Gurey dhigta waxa laga doonayaa inuu ahaado mid qarannimadii ku weyntahay dalku mid macna la leeyahay dalka midaan ka tahriibin oo jecel ciidaadna way heli karaysay inay dibadaha iskaga noolaato heer caalami bay gaadhay UN staff bay gaadhay halkaasay waxaan ku iska joogi karaysay way iska lasan karaysay dalkeena maanta waxay tartay iyo waxay aqoonta ku soo kordhisay iyo dadaalkay geysatay waxa soo dhan u gashay dalkaagii jamhuuriyadda Soomaaliland wax ku biiri wax ku kordhi wax ku contribute garee dhiiri geli garab joog waxa guul ah ilmo kasto maanta dhashay inuu magaca Deeb Gurey isagoo ka turjumaya oo qaranka wax ku soo biiriyo labeeri baan ku soo gabagabaynayaa anigoo eedo degdegaysa ku soo dhaweyn doona sharafna inoo tahay shalay toole waxaad arkayseen niman dhalinyaro oo wariyayaala oo live ka soo galay jeelkii waxaan ku wada muxuu ahaa oo warar gudbinaya aanay hubin waxa kaga filayd hadday war maqleen inay la hadlaan taliyihii ciidanka asluubta Axmed Cawaale Yuusuf Libaax inay la hadlaan hadday waayeen taliye ku xigeenkii ciidanka asluubta Aadan Axmed Mooga Kennedy inay hadday waayeen hay'adda uu hoos tago waxaan ku wada asluubta ay la hadlaan wasiirka cadaaladda inay hadday waayeen ay la hadlaan waxaan ku wada wasiirka arrimaha gudaha inay xogta sugaan laakiin inay war aan jirin gudbiyaan oo ay waxaan ku wada muxuu halkaas dadkii dawladdu waxaan ku wada aragto in meeshii mushkilada ka jirto si darro weyn bay ahayd qarankeena iyo dhalinyaradeenna waxaan uga digaynaa runtii wixii dalkeena wax yeelayay inaan ku degdegin aynu ka fiirsano war kasta inuu sheegin war baaba nabadgelyada wax yeeli kara hal qodob baan ku soo ururinayaa mucaarad iyo muxaafid mas'uuliyad baa saaran dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland